mudanayaasha golaha guurta Soomaaliland ayaa waxay saaka si adag uga doodeen xaaladda nabadgelyada dalka fadhigii saaka ee golaha guurta Soomaaliland oo shir gudoominaya gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurta mudane Saciid Jaamac Ali ayaa markii uu furmay waxa uu mudanayaasha ku wargeliyay in ay gudagalaan ka doodista qodobka afraad ee ajendaha kal fadhiga 38aad ee golaha guurta Soomaaliland kaasi oo ah xaaladda guud ee nabadgelyada ajendaha qodobkiisa afraad nabadgelyada iyo horumarinteeda xildhibaanada golaha guurtida ayaa waxay ku dheeraadeen ahmiyadda ay leedahay nabadgelyadu sidoo kalena waxay ka hadleen shaqooyinka ka soo cusboonaaday deegaanka waqooyiga gobolka Sanaag deegaanada ka tirsan degmada Xiis oo shaqooyinka ay ka soo cusboonaadeen waxaanay sheegeen in golaha guurtidu doorkii u lahaa uu ka qaato mudanayaasha golaha guurtida ayaa waxay ku dheeraadeen xaaladda nabadgelyo darro ee gobolka Sanaag oo ay sheegeen in shaqooyinkii hore uga dhacay go'aamadii laga gaaray aan ilaa haatan la fulin doodii mudanayaasha golaha guurtida ee xaaladda nabadgelyada guud ee dalka ayaa waxay u dhacday sida tan waxaa loogu dheeraaday gobolka Sanaag waxaa loo baahan yahay inuu wax ku agma maahan labada qodob inuu wax ku agmo deesoona wax weeyaan dad Soomaaliland leedahay oo nabadgelyada gadarka ka jirtay in laga hadlo waa nabadda waxa weeyaan nabadgelyo siyaasadeed nabadgelyo darro siyaasadeed way taso laba dhinac oo siyaasad ku hayay ka soo jeeda waxaan moodaa in dadkii shacabka ahaa ee deegaankii beelahii deganaa in laga doonayo laga baxsado nabadgelyo darradii oo kuwii ismari waayay ee siyaasadda ku haysay ay dadkana ku riixaabay doonayaan waxaan leeyahay taasi ha laga digtoonaado in siyaasadda ku haysay alkir kala qaata iyo way fiican tahay in wixii khilaafaada lagu dhameeyo wada hadal iyo safgarad waa tabuudo in wada gaar kara haddii la dagaalamo oo mid adkaado loo ma dhamaado wuu soconaya kii adkaadayna ma nabadgelin oo riyaa iyo dhimasho iyo dhaawac ka qaadaya kii laga adkaadayna inta adag waa gaaraysa waxaa leeyahay yaa nabadgelyo laga reebi gobolka Sool ee laga hadlayo nabadgelyada taas ku dhaafiya marka nabadgelyada ka soo noqdo horumarinteeda dhalinyarta in xukuumaddu ay bulshada dhalinyarta ama wixii akhlaaqiyadka wax u dhimaya meelaha ama suuq ha noqoto ama wax la iskaga duuduuba ha noqoto soo gudbinaya in xukuumaddu ay nacam ka wacyigeliso waxaa dhibaatooyinkaas oo dhan u keenaya ee nabadgelyo darro xumo ku keenaya midda kale xukuumaddu waa inay cadaadiska ay ka daysaa imka bariyaha dambe oo kale halkaas iyo gobolka awdal dhibta taagani waxay tahay in laga hadlo ay mudan tahay in dhalinyartii cadaadis fara badan la saarayo xarig fara badan ay mutaysanayaan intaas laga nacam xukuumaddu ay hoos u eegto bal dhalinyarta oo wixii wanaagay u soo jeedin kartay kala hadli karto ay taas kala hadasho waxaana leeyahay nabadgelyadu waa inoo wada muhiim dhammaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland aynu ilaashano nabadgelyada xuskii dhiinmayna uu soo dhow yahay isagana foojignaan dheeraada halla muujiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu laakiin mushkiladda jirta waxa weeyaan golow ciidanna ma leh dastuurkana uguma qorna ciidan waxaasoo dhan xukunaa laga gaadho ciddii fulin lahayd golaheenna way taalla arrimaha gudahay taalla madaxweynaha ag taalla wixii xukun la gaadhay haddana golow ciidan ma isaguma fuliyo marka waxaa loo baahan yahay dee horta bal wixii hore in laga daba tago haddii kale wixii waa uu isdul furayaanoo sidii unbay u soconayaane anigu taan ku talinayaana waxa weeyaan hala diro la tegiyo la diriyo dee go-aama la soo gaadhiyay maxaa fulay nabadgelyada la qaato halkaa ayay taagan tahay maanta
waxay doonaysaa hawl weyn baa halkaa ka soo socota meeshaasuna waxay ahayd meesha qura ee gobolka Sanaag galbeedkiisa iyo barigiisa iyo waqooyigiisa marka la eego meesha qura ugu nabadgelyo fiican bay ahaa jirtay maanta halkii baa xorodkii dabka ahaa galay waxa loo baahan yahay iyadoo gobolka Sanaag meelo badan ay colaado iyo isku dhac ka yimaadeen labada beelood walaalaha ah ee isku dhacay in xaaladooda si dhug leh looga qayb galo كل إنه قول قرن بينهاي حكومة باجر تقول يا الكلام قرن باجر شعب كإنه عدالة سمين نضط كإنه نهي أمراض وإنه عدالة سمين مركزين نقول صار عدالة هو حكاي من صار أمراضي يضط كي مضحدي وعدالة دي كان لحظي في الحقيقة معناه مركز إلا إذا ما هالشعب كيو قبائل كوضع شيء له كدقن لكن هبك الله معمول يهدي عدالة أين ترين مدحدا سبب النقونصا رسولك حديث بكوري صلى الله عليه وسلم هدي مؤمنين مدحدوا أي النقدان كو عدالتك اللي يحضر وعدالة مديكو هاي بوايا تجار تجدتك وحيستان أي النقدان كو بحين وايا صدقدي يسكدي دمر كنا كارنتو دي أي كروة طلابان أو النقدان كو تليو لديجيستو هداد مؤمنين تين إلهي ويديست أدوية ديانت كان ببحضان وآخرتك تان وحديث صحيح وي كقلو قورتيهان حكومتي فلنتي قولياش قرنك انتين بكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هدي أمن درع اعتماده إننا كسيحنا عدالتنا المنطق واحدنا وعنا النفط إذا نسو تشيدين أيو يا أنت مدح هذا شيء ضمان وحي مدحه ينان عد ايدين شعبي ينان كوين arrinta ceelaf weyn arrimaha marka xagga shaan uu kaano ceeriyaan xuknaha ka dhacay go'aamaha la gaaray heshiisyo beelaha ka yimina way ahaayeen ilaa imika wax ka fulay ma jiro iyadoo waxay u baahan tahay dadkoo kala maqnaa oo dhulkoo lagu kala maqnaana weli sidii baa loogu kala maqan yahay wixii la kala tabanayay ee lagu heshiiyey dee xukunadu ka dhacayna weli wax badani may dhammaan marka waxaynu u baahannahay inay wasaaradda arrimaha gudaha iyo gobolku dee waa in go'aano laga qaato oo wixii fulinteedii waa in la galo ciddii ay ka fuli weydana dee waa inaynu gacanana ku wada qabanno dhinac uga soo wada jeesano sidoo kale waxaa go'aano laga gaaray meesha la yidhaahdo shidan iyadana dadkii waayeelka ahaa iyo waxgaradkii labada beelood si wanaagsan oo gobonnimo leh baa arrimihii markii halkaa aynu ku haynay si wanaagsan baa la isula qaatay heshiis baa laga gaadhay heshiiskaasi wuxuu u baahan yahay in la fuliyo muddo badanna way ka soo wareegtay waxaynu u baahannahay in la dardargeliyo si aan mushkiladaha qulqulatooyinkaa socdaa dhinac walba inoogaga fidin oo aan loogu dhex dawaqin iyadana in waayeelkii labada dhinac ee go'aanada lagu gaadhay ee go'aanada qaatay in sida ugu dhaqso badan iyagana loo yeedho fulintoodii la galo qolo waliba wixii laga sugayey iyadana horumarin bay ka mid tahay iyadana si degdega loo galo qodobada kale ee meesha ku jira tii u dambeysay ee ahayd xildhibaan maxamed shida ayaa ka warbixiyay ceeri gaabo iyo xiis iyo aagga wixii ka dhacay waxaana degdeg u tegey golaha wasiirada qaar ka mid ah iyo golaha wakiilada ee gobolkaa ka soo jeeday iyagoo isbahaysanaya qoladii deegaanka iyo siyaasiyiin ayay meeshaa tegeen laakiin wax dambe may dhicin oo war dambe oo dhiilada maynu maqal waxaan filayaa arrin fiican bay qabteen inkastaanay weli ku maqan yihiin si aanu markaa ku hayay iyaga oo madaxdii gobolkula raacday